gaar u tahay raadiyo Hillsong. hawaare jacaylkee waa tahay waa qaybtii 23aad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jacayl. sheekadan hal abuurkeeda waxaa iska leh Al-Abwaan Isma Sitoosi. dhegeysi haboon qaybtan oo ka xiiso badan qaybihii kale aad dhegeysan jirteen. dhegeysi wacan noqo sheekadan qof looga sheekay balse ha noqon qof hadde. dhegeysi wacan. waa tahay dhegeystayaal qaybtan waxay nooga bilaaban doontaa ee sheekada buuliyowgii baari iyo barnixiisaheedii ayaan qaybtan ugu magac darnay. waa tahay wuxuu ka warqabiyey in ay tahay gaclisidiisii barni ayuu markuu qabtay waxaa dhex maray hadalladan soo socda. baari oo farxad la ilmeynaya ayaa yidhi gaclisadiisii, barniyey xabiibi maxaad iga qarisay in bixitaankaaga maxaad iga qarisay inuu leen ku xariisnaa. miyaadan ku fakarayn in haddii aan ilbirqsi ku waayo in naftayda ay halis gelayso. barniyey hadda wax walba way dhaceen balse sida tan oo kaleeta naga ilaali, waayo adiga waxaad tahay rajadii qalbigayga misna mustaqbalkii noloshaydoo dhan adigaan faraha kaa saaray.
mana u malaynayo in haddaan ku waayo nafteyda ay heli doonto qof ay ku qanacdo oo sidaadoo kale quruxay iyo waran. Adiga dhankaaga maxaa ku soo kordhay? Waan la socdaa in waddan hesheeye aad joogto, waayo dal aan waddankaaga ahayn waa dareen ku joog. Barni oo ilintii caashaq ee xiisihii gacliyaheeda ka dhammaaday oo welina la oonaysa ayay ugu jawaabtay gacliyaheeda. berigii aan ku bartiyo barigii naftayda oo boqorra karono berigii aan ku bartiyo bogaad iga taala bogaad iga taala bashii naftayda oo barigan jeclaayo bal kumaan ilaawino bartaad iga taala bartaad iga taalayey bartaad iga taala bohol caashaq noqoto baxsano xabiibi bal waa hadda jiraan ku ilaawine bal waa haddaan jiraan ku ilaawiney bal waa haddaan jiraan ku ilaawiney bal kumaan ilaawino bartaad iga taala bartaad iga taala bool caashaq noqoto baxsano xabiibi bal waa haddaan jiraan ku ilaawine bal waa haddaan jiraan ku ilaawiney. Baariyow, anigoo u heelan inaan kuu sheego bixitaankeyga ayaan ku soo wacay ilaa dhowr jeer, balse iigama jawaabin taleefanka. Xitaa waxaan isdhahay baari armaad gurigiisa aadda, ha yeeshee maalinkaa aabba ayaa joogay, waanay ii suuragelin. safarkiina uu igu soo dhowaaday. xabiibi, haddana UK ayaan joogaa, laakiin ha isdhihin barni maxay kaaga fogaatay. kaama fogaan ee qalbiga ayaan kaaga mataanahay. xitaa waxaan isku dayayaa inaan adigana leen kuu xareeyo misna kuu doodo si halkan aan ugu soo gabagabayno miraha jaceylkeena. tagin adduunyada baari cadde hadalkaa ay lamaantiisu leedahay aad buu ugu farxay. waxaanuu yidhi markidona adoo marwadaydo makaan xalaala joogno macasiga jacaylkeena midhiisa gurano malab caashaq isdhansiino sida laba mataano u midowno caashaqa markidona
maxabadan mooshaan dareemaya meel walbaad joogtana marwadayda tahaye marwadayda tahayo marwadayda tahay marwadayda tahay marwadayda tahay markii doona aduu marwadaydo makaan xalaala joogno macansiga jacaylkeeno berihiisa gurano malab xashaqays dhansiino sida laba mataana u midowno caashaqa markii doona maxabadan waashaan dareemaya meel walbaad joogtana marwadayda tahay marwadayda tahay marwadayda tahay baari iyo barni waxay isla qaateen dhinacyo badan oo ku khotama arrimaha jacaylkooda. ugu dambeynna barni waxay gacaliyeed kala dardaarantay inuu gabar kala damcin. waxaanay tiri, baariyow macaan, waxaan kala dardaarmayaa in dhexdeenna uu soo gelin nacab caashaqeenna wax u dhimaya, igana ilaalisid in gabar kale aad xiriir la samayso. waa igu ballan macanto inaan ka dhowro caashaqeenna waxaa cadowga ku ah. hana ka yaabin in gabar aan adiga ahayn xiriir jaceyl la sameeyo. taa oo kalena waa died night ama habeenkii dhintay, waayo nafteydaanan iga ogolaanayn in qof kale aan damco, sababtoo ah damacu wuxuu yimaadaa marka aanad haysan jacayl dhaba. balse ismalhii gabar kale damac ku samey, xitaa hadday iga dalbato awood uma haayo, waayo waxaan ahay qof noloshiisii oo dhan ruux kale uu maamulanayo. ruuxaasna waa adiga. waxaanse kaaga digayaa in hadal laguu sheego, hadalkaana u muuqda mid dhaawacaya kalsoonideenna aad ka digtoonaato. waan hubaa in ilbiriqsi iga ahaan karin, sababtoo ah laabyo mid ayaanu nahay, mana waxaa halkaan inooga dhan qaybtii 23aad oo ahayd qayb xiise gooni xambaarsan, waana qaybta ugu waqtiga dheer qaadatay sheekadeenna qaybihii kala duwanaa ee inoo soo taxna. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. sheekadan fikradeeda waxaa iska leh al abwaan isma sitows. waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.